Duulaanka Israa'iil ee Koonfurta Lubnaan waxa uu noqday mid ka mid ah duullaannada ugu xooggan ee khasaaraha lama filaanka ah ee aadka u xooggan uu ka soo gaaray dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Dowladda Lubnaan waxay sheegaysaa in waxa ka dhacaya dalkeeda ay tahay xasuuq ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Sidoo kale, Iiraan ayaa sheegtay in loo baahan yahay wax laga qabto duqeymaha xooggan Israa'iil ay ku hayso Koonfurta Lubnaan, kuwaas oo ay ku sheegeen kuwo bahalnimo ah oo aan loo aaba yeelin marna. Muddo 5 maalin ka yar, Israa'iil waxay khasaare aad u xooggan gaarsiisay ururka Xisbullah, taas oo taliyaal aad u fara badan ay ku waayeen. Sidoo kale, 2 maalin gudahood, dad 600 ku dhow oo shacab reer Lubnaan ah ayaa lagu dilay duqeymaha cirka oo diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay geysanayaan. Inkastoo tan iyo 8 Oktoobar ay bilowdeen duqeymaha isweydaarsanayaan Xisbullah iyo Israa'iil, dhanka Xisbullah guulo badan oo la taaban karo oo ay gaartay waxaa lagu fasiri karaa inay yihiin in shacab badan oo Israa'iiliyiin ah laga raray deegaano xuduudaha ku teedsan oo ay degganaayeen. Sidoo kaletana, Israa'iil ay xuduudkaasi marna bannayn weysay maadaama culays aad u xooggan uu ka saaran yahay. Muddadaasi sanadka ku dhow, dhanka Xisbullah waxay ku waayeen taliyaal aad u fara badan oo ka mid ah ciidankooda. Taliyaashii hogaaminayay 1 maalin gudaheed ayaana ku dhowaad 20 taliyaasheeda ka mid ah laga dilay, kaas oo ah asbuucan gudihiisa. Khasaaraha sidaas u badan Xisbullah uu soo gaaro, waxyaabaha ay ka baran karaan waxaa ka mid ah in mar hore ay isku milmeen ciidanka Xisbullah iyo sirdoonka Israa'iil, gaar ahaan hay'adda sirdoonka dibadda ee Israa'iil ay leedahay Mossad loo yaqaano. Mossad ayaa la tilmaamay inay ukuma dhigatay dhanka Lubnaan, gaar ahaan ururka Xisbullah dhexdiisa, oo saameyn aad u xooggan ay ku leedahay, taas oo marna aanay ka dhuuman karin ama aan iska qari karin taliyaasha sarsare ee ururka Xisbullah. Kooxda taliyaasha ee asbuucan gudihiisa la dilay waxaa ka dambeeyay duqeyntii ugu dambeysay ee shalay dhacday in lagu dilay taliye sare oo kale oo ka tirsan ururka Xisbullah, kaas oo la tilmaamay in lagu dilay qaybo ka mid ah Koonfurta Lubnaan, gaar ahaan magaalada Beirut. Taliyahan la dilay ayaa sidoo kale la sheegay inuu u qaabilsan ururka Xisbullah dhanka gantaalaha, waxaana Israa'iil markaas isku dayeysaa in halbowlayaasha xanuunka badan ay ka dareemi karaan Xisbullah ay ka beegsato. Caalamka ayaa aad uga walaac qaba in dagaalku uu ku baaho gobolka. Kooxaha ku sugan Suuriya, Ciraaq iyo Yemen iyo Islamada Iiraan ay dagaalka ku soo biiraan, hase ahaatee dhinac kasta wuxuu sheeganayaa in xilligan dagaal toos ah aanu diyaar u ahayn. Xisbullah waxaa dan ugu jirta in ciidanka Israa'iil ay soo galaan gudaha si awooddooda rasmiga ah ay u soo bandhigaan, hase ahaatee gantaalaha hadda ay tuurayaan oo ay sheegayaan ku garab siinayaan kooxaha Falastiiniyiinta iyo dagaalka magaalada Gaza oo ay qayb kaga noqonayaan, hadda ayaga dhibaatada ugu xooggan ay ka soo gaaraysa shacabkii Lubnaan. Sidaas la mid ah xasuuqa ka jira magaalada Gaza oo kale ayaa loo leynayaa. Waxaad moodaa in xilligan Lubnaan ay Israa'iil ku dabaqayso xaaladda magaalada Gaza oo kale, oo duqeyn aan loo meeldayin ay isaga garaacayso.